السلام عليكم ولا ليال كسود ولا درسيجين مانتا وحان وهدلينا وحلو يقانو constraints هورين وان اوسو هدلني لكن سفيعا ما نصو فاهمين مانتا ان شاء الله تعالى وحان يعني شرحينا قيبو كميدا اما يعني شرحات ديرادة ايان كبحينينا مانتا constraints وحلو لجيدو لكن انت بدن وحان استعمالي دونا marka aan abuurayno tables insha Allah ashirkeena inoo soo socdo so constraintska waxaan ku soo sheegnay inay tahay waa sharciyo lagu dhaqan gelinayo daatada column-ka ee ku keydsan table-ka tani waxaa loo isticmaalayaa inay ka hortagto in data aan sax ahayn lagu keydiyo database-ka tani waxay xaqiijinaysaa sax ahaanshada iyo kalsoonida macluumaadka ku jira database-ka constraintska waxay ahaan karaan kuwo oo lagu base gareynayo ama level ama column level ah ama table level ah kuwa column level ka ah waxa lagu apply gareeyaa kaliya hal column meesha kuwa table level ka ah lagu apply gareeyo dhammaan table ka oo dhan marka intaan soo socoto waxa waaye inta badan constraintska oo loo isticmaalo ama lagu isticmaalo SQL ayay noqonaysaa not null constraints waxa waaye waxay xaqiijinaysaa column-ka inuusan ahaan karin mid value-giisa 0 yahay ama daatada ku keydsan inay ahaan kareenin yani 0 unique constraints ayaa jirto tan waxay xaqiijinaysaa inay dhammaan value-ga ku keydsan column-ka ay kala duwanaadaan oo wax duplicate ah ama yani copy ah meesha aysan ku jiri kareynin oo midba mid kale uu ka duwanaado primary key horeyna waa soo aragnay wuxuu xaqiijinayaa ama waxa loogu talagalay inuu aqoonsado row-ga ama record-da ku keydsan database-ka ama yani waxa loogu talagalay si unique leh ama different aan ugu soo hadalnayba kor different oo kala duwan inuu aqoonsado datada ama record-da ku keydsan database-ka ama table-ka ku keydsan foreign key waan ku soo hadalnay inta badan wuxuu xiriir leeyahay data ama ku keydsan table kale waxa constraintska waxa lagu base gareeyaa yani columnska ku keydsan table kale ayay inta badan xiriir leeyihiin oo kaligooda ma istaagaan check constraintska waa constraints oo loogu talagalay inuu xaqiijiyo valueska oo ku keydsan columnska inay buuxiyaan xaaladaha qaarkii inay buuxiyaan loogu talagalay waaye sida tusaale hadii aan abuurayno waxa waaye table hadaan abuurayno marar qaarkii waxaan sameyn karaynaa in aan dhahno data oo yani 0 ka yar ama 0 ah laguma keedin karo table-ka hadii oo conditionskaas aan sameyno wax 0 ka yar laguma keedin karo table-kaasi oo wax 0 ka badan ama positive value ah kaliya ayaa lagu keedin karayaa exclusion constraintska wuxuu xaqiijinayaa hadii laba row la isbarbardhig lagu sameeyo oo column gaar ah ama expression sida equal waxay la mid tahay waxa expression equal iyo wixii la mid ah greater than ama less than hada aragtid intaas waxa loo isticmaalaa comparison ayaa loo isticmaalaa kuwaas oo loo isticmaalayo yani operator gaar ah tan oo yani isbarbardhigan waxay xaqiijinayaan inaysan soo celinin maxay yani wax ii sheego dhamaantood inaysan soo celinin true value ama laba row hadii la isbarbardhigo oo yani xaaladaha qaar ama column-kan lagu apply gareeyo sida expressionista equal iyo wixii la mid ah ayagoo la isticmaalayo laguna base gareynayo xaaladaha qaar operatorska inay dhamaantoodaba aysan soo celinaynin true aysan soo celinaynin oo qaarkood laga yaabo inay false ay soo celiyaan marka maanta darsigeena wuxuu ku koobnaay in xoogaha yar aan ka sii hadalno constraintska waxaan filayaa maanta constraintska faham guud waa laga haystaa insha Allah laakiin inta badan waxaan si guud ahaan ama yani si faahfaahsan aan ugu sii hadli doonaa ama si toos ah aan u arki doonaa qaabka loo isticmaalo markaan abuurayno tableska insha Allah aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh